qaramada midoobay ayaa albaabada u laabaysa xarumaha rootiga lagu sameeyo ee ku yaala marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. qaramada midoobay ayaa waxa ay ku dhawaaqday in gabi ahaanba ay albaabada isugu dhifan doonto goobaha lagu sameeyo rootiga ee ku yaala marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. qaramada midoobay waxay sheegtay inay ku qasban tahay in ay xirto dhammaan xarumaha lagu sameeyo rootiga ee Gaza, sababtuna waxay ku sheegtay inay tahay buryaraanta ka dhalatay go'doominta Israa'iil ee dhulkaasi ay ka geysanayso. xarumahan ayaa muhiim u ahaa quudinta kumanaan qof oo reer Gaza ah oo halkaasi ay ka heli jireen quutulyoomka ama raashinka ay cunaan. Israa'iil ayaa joojisay in muddo ah gargaarkii Gaza soo geli jiray. dhinaca kale Israa'iil ayaa isku dayaysa in ay iska difaacdo dilkii shaqaale caafimaad oo lagu dhex dilay gaari kuwa gurmadka degdega ah oo gudaha marinka Gaza ka dhacay. afayeen u hadashay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ayaa sheegtay in xiritaanka ay saameyn doonto boqolaal kun oo Falastiiniyiin ah oo ku tiirsanaa rootiga halkaasi lagu sameeyo. Israa'iil ayaa go'doominta bilowday horaantii bishii hore si ay u kordhiso cadaadiska Xamaas ay ku doonayso in ay sii dayso la haystayaasha Israa'iil. joojinta gargaarka ayaa waxa ay haatan ka digayaan hay-adaha arrimaha bini'aadanimada in ay dhibaato weyn ka dhalan karto. dhanka kale ciidamada Israa'iil ayaa isku dayay inay iska difaacaan falkii ay ka geysteen Gaza toddobaad ka hor markii ciidamadooda ay rasaas ku fureen kolonyo gaadiid ah halkaasi oo ay ku dileen 15 qof oo 10 ka mid ah ay ahaayeen shaqaalaha caafimaadka iyo sidoo kale shaqaalaha difaaca rayidka iyo shaqaale kale oo ka tirsan qaramada midoobay.